السلام عليكم مقعيقة فاطمة قاسم دايبة اللي يرادا وحان ربي لهاي إنان إسوكين سو بندقو وحان أهي هويني إسو سو شرح داي إن حفيسك ugu sareeya Soomaaliya waxaan rabaa madaxweynenimada inaan u ordo sanadka soo socda waxaan ahay hooyo oo 4 ilmood leh xaasan ahay oo kan ugu weyn oo jiro 19 sano tan ugu yarna ay jirto 8 sano waxaan ahay Soomaalida ka soo orday Soomaaliya 9kii markii dagaalka uu bilowday waxaan ahay dadka ku soo orday Scandinavia waxaan degay dal la yiraahdo Finland oo hadda muddo ku dhow 25 sano aan deganahay waqtigan xaadirka waxaan joogaa Mareykanka magaalo la yiraahdo Cambridge jaamacadda oo Harvard siiba qaybteeda oo Kennedy School ayaan waxaan ka diyaarinayaa Masters of Public Health isla markiina waxaan diyaarinayaa PhD-gayga ka diyaarinaya jaamacadda Helsinki waxaan ahay qof caafimaadka ku soo takhasusay waxaan ka soo shaqeyn jiray isbitaalada UN-kana waan u soo shaqeeyay dalal kala duwan waxaan ahay qof oo dalkeeda jecel inkastoo aan Kenya ku dhashay waxaan ku barbaaray aan ku koray Soomaaliya dal kale aan leeyahay male aan ka ahayn Soomaaliya Kenya dadka waxaan ahay laga soo tarxiilay 89 waa wax hadda lagu hayo dadka Dadaab jooga weligeedna lagu soo hayn jiray Soomaalida degan Kenya uma aan arko dib weyn inay ii geysteen markay iga soo saareen sababtoo ah sharaf ayaan ka qaaday oo dalkayga hooyo oo aabahayga hooyadeeda ay ku dhasheen oo dadkayga dhan ay ku dhasheen igu soo celiyeen sharaf waxaan ku leenahay markaan dalkeena aan deganahay oo dadkeena aan ku dhex jirno waad aragteen waqtigan xaadirka dhibaatadana haysato daan Soomaaliya nahna meel kasta aan joogno adduunka subax kasta waxaan ku soo kacnaa rafaad iyo dhibaato hooyo ooynaysa ilmo la garaacayo aabba la bursanayo awoow la gubayo war dadkeena waa dhibaataysan yihiin South Africa ku fiirso wax lagu subinayo maxaan kale u qabanaa aan ka ahayn inaan ku fiirsano Kenya waad aragteen wax lagu subinayo ugu dambeyntii waxay aad masawir aan Facebook aan soo saaray hooyo Soomaaliya oo dhulka inta ku dhacday oo mid Kenyaati askari Kenyaati ul inta u qaato u garaacay waxa murugo igu ahayd marka dad qaarkeena ay leeyihiin islaantaas wax lagu subinayo ayada isu keentay war maxay iskugu keentay in la dilo oo dhulkaas lagu tuuro la garaaco ma ayada dagaalka bilowday ma ayada xabadda sida ma ayada dadka kufsata ma ayada meelaha qarxisa nafteeda u orday ilmaheeda la orday qof raba ma la dalkiisa inuu ka tago kulligeena markaan ka soo ordayna dalalkeena waxaan uga soo ordnay cabsi iyo dhibaato noo la geysanay 25 sano ayaan dhibkan ku dhex jirnaa aan isfiirsanayna maxaa sharaf noogu jirta in dal aan ku rabin aan isku dhadhijino aan ku jirno saas daraadeed waxaan go'aansaday inaan dalkayga aan u noqdo waad imaqasheen dalkayga Soomaaliya sababtoo Soomaaliyan ahay qabiil malihi qabiilkaygu waa calanka dadkaygana waa dadka Soomaalida dad kale aan leeyahay maantadan male Soomaaliya qof u maqanna male aan ka ahayn anaka waan ogahay dhibka taas iga imaan doonto yaana ogeyn waad aragteen dadka dalkooda wasiirada dalkooda dhisaya tageen dhiigooda u qubeen maalin kasta inta la dilo meydkooda banaanka lagu soo jiido lagu soo tuura qof walba oo maantadan dalkiisa naftiisa u hura waa qof jihaad u dhintay jihaad ma ahan inaad soo gashid sar dad walaalahaada ah oo muslim ah oo shahaadka maraya inaad dishid jihaad ma ahan taas waxa waaye wax islaamka ka baxsan waa wax ay diinta ogoleen dhaqankeena ma ogolo laakiin waxa jihaad qofka dalkiisa dhaxda u soo dhuqsada jihaadkaas aan rabaa inaan soo galo oo dalkayga aan wax u qabto dadkaygana waxaan u qabto waad ku mahadsantiin inaad waqtigan aad isiisaan waana isu dambeyn doonaa insha Allah waxaan rajeynayaa barwaaqo
iyo wanaag. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.